Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Somalilan, Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo wareysi gaar ah siiyay BBC ayaa sheegay inay ku wargeliyeen Turkiga in aanay imaan karin xeebaha Soomaaliya. Turkiga waan u sheegnay inaanay xeebaha Somalilan soo geli karin. Waana ognahay in Somalilan xeebaheeda u taliso, Soomaaliyana ayna u talin. Wax haba yaraatee aanu warwar ka qabnaa ma jiro, ayuu yidhi wasiirka isagoo aan wax ka weydiinay siduu u arko heshiiska difaaca ee ay wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Turkiga. Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay inuu meel gabagaba marayo hirgelinta is-afgaradkii badda cas ee u dhexeeya iyaga iyo dowladda Itoobiya. Is-afgaradkan muranka badan dhaliyay ee ay bishii koowaad sanadkan maalintiisii koowaad ay la gashay dowladda Itoobiya, kaas oo dhigay in Somalilan aqoonsi buuxa ka hesho Itoobiya halka dowladda dhexe ee Itoobiyaanku laga kireynayo saldhig ciidan badeed oo ay ku yeelanayso gudaha Somalilan. Heshiiskan ayaa aad uga careysiiyay dowladda Soomaaliya, sababayna in xiriirka diblomaasiyadeed ee labada waddan uu gabi ahaanba meesha ka baxo. Sidoo kale Midowga Afrika ayaa kasoo horjeestay is-afgaradkan dhacay. Wadamo badan sida Mareykanka, Turkiga, Ururka Jaamacadda Carabta iyo ka Midowga Yurub ayaana soo saaray baaqyo ay ku sheegayaan ahmiyadda ay leedahay xurmeynta madax-bannaanida iyo gobonimada dhuleed ee leedahay. Saameynta heshiiska ka dhalatay keliya kuma ekeen wadamada ka baxsan Somalilan ee qura, balse wuxuu saameyn kale oo gudaha ku yeeshay xukuumadda Hargeysa. Waxaan is-casilay wasiirkii gaashaandhigga ee Somalilan Cabdiqani Maxamuud Caateeye, isagoo sheegay in is-afgaradkan ay Somalilan la gashay Itoobiya ay ahayd in golaha wasiirada lagala tashado heshiiska ay Somalilan la gashay Itoobiya oo ah dal daris la ah oo aan bad lahayn. Dowladda Soomaaliya ayaa ku tilmaamtay heshiiska mid aan gabi ahaanba jirin, lana aqbali karin, waxayna sheegtay in is-afgaradkan yahay mid xadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah, madax-bannaanida iyo gobonimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Fagaarayaal kala duwan ayay madaxda dowladda Soomaaliya uga hadleen. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana si adag uga hadlay. Waxaa sidoo kale ka hadlay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka fariistay arrintan guud ahaanba waxay qaadaceen heshiiska, iyagoo qeexay inay tahay xadgudub ka dhan ah qaranimada Soomaaliya. Gudaha Soomaaliyana waxaa ka dhacay banaabaxyo looga soo horjeedo is-afgaradkaasi, waxaa ugu waaweynaa kuwa ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Isu soo baxayaasha ayaana muujinayay halhaysyo ay ka mid yihiin baddeenu beec ma aha. Go-aankii ugu dambeeyay ee looga soo horjeedsaday heshiiskaasi wuxuu ahaa mid ka dhacay caasimadda Dooxa ee dalkaasi Qatar. Kalfadhiga saddexaad ee Madasha Dhaqaalaha iyo Iskaashiga Carabta oo ay leeyihiin wadamada Bartamaha Aasiya iyo Jamhuuriyadda Azerbaijan oo lagu qabtay 3kii bishii Abriil 2024 dalka Qatar ayaa lagu cadeeyay taageerada amniga, xasilloonida, midnimada, madax-bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya. Waxay sidoo kale ku taageereen dowladda Soomaaliya dadaalka ay ugu jirto ilaalinta madax-bannaanida Soomaaliya ee dhulka, badda iyo hawada, sida lagu sheegay bayaanka Dooxa oo ka kooban 16 bog.